shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxay si diiran u soo dhaweeyeen musharax madaxweyne General Asad Cabdullaahi waxa faafahinta warbixintan magaalada Boosaaso ay nooga soo diray wariyaheena Xuseen Cabdi Madar qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in ay aad u doonayaan musharaxnimada Asad Cabdullaahi Diyaano waxaana ay sheegeen in ay doonayaan dad la socda shucuurtooda iyo waliba danaha gaarka ah ay leeyihiin iyagoo ka soo horjeestay musharaxiinta kale ee dibadjooga ah shacabka qaybihiisa kala duwan ayaa waxa ay sheegeen in ay aad u danaynayaan garab taagan yihiin musharaxa cusub ee xilka madaxtinimada dowladda Puntland ee Asad Cabdullaahi General Asad Cabdullaahi ayaa goordhow ku dhawaaqaya musharaxnimada xilka madaxweyne ee dowladda Puntland ee 2019 Bismillahir Rahmaanir Rahiim aniga magacaygu yahay Cabdirasaaq Axmed Muuse kana tirsan saraakiisha ciidamada Puntland waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin uga direynaa musharaxa dhalinyarada ah oo aanu muddo badan saadaalinay oo sugaynay inuu maalmaha kamid ah uu ku dhawaaqi doono inuu musharax u yahay ummadda Puntland una istaago ama u kaco sidoo u badbaadin lahaa ama u samata bixin lahaa dalkan dhibaatooyinku ay la darseen oo 20 sano la soo daala dhacay waxyaalaha aanu ku taageersanahay musharaxa dhalinyarada ah waxa ugu horeeya inuu yahay nin dhalinyaro ah damiirkiisu uu nool yahay dareen wadaniyadeed iyo amaano ku caanbaxay daljoog ah danyarta iyo maatada u adeega oo daadihiya ammaanka lagu seexdo maanta oo aynu Puntland ku naaloonayno u guntaday oo qayb lixaad leh ka qaatay waxaanu rajaynaynaa in ilaahay xilkaas uu kacay la garab galo waxaan rajaynaynaa in ay noqoto doorkii ama albaabkii dhalinyaradu ay ka soo gali lahayd hannaanka siyaasadda ee waddanka ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa in xildhibaanada 66 ah ee baarlamaanka Puntland ay dooran doonaan musharaxaas dhalinyarada ah wadaniga ah ammaanada ku caanbaxay iyo wadaniyada damiirkiisu nool yahay da'yarta ah daljooga ah oo aan baasaboor shisheeye ama dibadda ka yimi aan wadan war u haaya ama xogogaal u ah xaaladda waddanku uu ku sugan yahay wabillahi tawfiiq والله على ما أقوله وكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore magacay waa Jabarta Cabshuur Xaaji Mire gudoomiyaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee Puntland waan soo dhaweynaynaa qof kasta oo musharax ah oo aan ku imaansin musuqmaasuqa oo raba dalkan in uu horumariyo kalana dagaalamo musuqmaasuqa aafada ee aafaysay Puntland annagu ururbaanahay cid gaar ah ma taageersanin laakiin dhammaan waa taageersanahay cid kasta oo dalka ku qabanaysa waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Puntland ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dimuqraadiya sidii kuwa hore uga dhici jiray waa mid aanu kaga bedelnahay dhammaan maamulada kale meelaha ay isku qaqabsi iyo ay ka yimaadaan iyo dhibaato sida Koonfur Galbeed oo kale taas Puntland kama dhacdo marka aad iyo aad baad u mahadsantiin الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه aad baan u salaamayaa shacabka Puntland iyo telefishinka iyo asxaabta iyo dhammaan inta garanaysa magacayga iyo muuqayga dhammaan waa salaamayaa maanta sideedaba Puntland waxay u baahan tahay sabata bixintuna waxay ku imaanaysaa in la doorto cid taqaana waxay u baahan tahay sababtoo ah ummadda waxaa dilay iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo wax ma aragtay aan ummadda dan u ahayn dalka waxa dan u ah maanta waa dareemaysan dhalinyaro oo garanaya waddanka 75 waa dhalinyaradu in la taageero oo waliba aan taageero aan af ahayn taageero niyad iyo nafba lagu taageero dalku inuu sabato baxo qof walbana oo dhalinyaro oo codkiisa qofku rabana ku doorto qofku rabana ku diido taas waxay asbaab keenaysaa in la taageero cidii u saciyaysa arintaas marka waxaan leenahay ummadda Puntland iska daaya nijacaylka iska daaya qabyaalada iska daaya reehelka waxaad raacdaan maslaxada ummadda meesha ku jiro maxaa wacay sida maslaxada waxay ku jidhaa inaad taageerdaan ninka u danaynaya 75 ninka u danaynaya oo dhalinyarada oo gaarsiinaya dalku inuu gaaro one man oo qofka codkiisa wuxuu ku dilo ninkaasuna waa General Maxamed Cismaan Cabdullaahi
هلا تاجروا قبيلة درس كداية ومرة مصلحة هذا مرة قد كل عدين ومرة لبعض ما كل عدين ومرة ما انتهى خلد منها انت ساين لا هي ومرة بتلاني شعبك سؤالنا والسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنجنير هذا كان عقدود أدبروا ما سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هل كان هذا قصده وين يا مشرحنا ماذا جنرال أسد عبد الله محمد عبد جنن أقل ما يستاهله تك الدنيا بدون أيام مشرحنا مديس وشخصي لأن يراه موادنا ضد يدلك الجيقان وحولنا وقت سيدا أوجد وحن ومدة كبر لها أما وير لها إن جنن كرعان وقويهن وانك ضدك يدلك الدفاع يسوي نفتي سوهري وانك وح قبض كبدنا حق دفاعك حق وح قبض هل كان قبل لا يبوه له دريتو السميه ولا سعتان ضد بقضيه حفظ عندنا انا وجار بانا مساكين تضيرت انك كور هيوي سقاشن بوسيه اسد فونديشن وحل يراهده باجره او بخيو او نيبر هوركيga iyo jaarka inta ilaahay kullu yaqaanaan oo bixiyo sida awgeed أسد بحر الله تاجرة عدد يو البكو تاجرة عد كنا نسي أسد عبد الله محمد عدي حليل هذا الدارات وحن هلكن كسلام يا وحن هلكن كبلا يا أسد عثمان ديانو وانين كرتيلا وانا نندلك يدتك وحوق وانكرا وانا كفر أحسن هاي ما أنت وانا سوقي وان سوقي لا إنه ما أنت تشرحه وان سوقي لا وسما دام وما أنت تشرحي ما شاء الله ما شاء الله والله نندلك ولا شيء وانا نندلك كوكري نندبلع كي مديو دقن عسل دقن علي سماها وانين ولي دلك جواب جري وانين كلا يقان ما أنت كي ما ركت جرجر كلا يقان إن بدلين أردن waxaan leeyahay asad xildhibaanada Puntland codka isaga hasiyaan asad waa nin kartile waa nin masaakiinta koriya waa nin dalka iyo dadkaba wax u qabtay waxaan leeyahay ilaahay ku guuleysiiyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibtay musharaxa asad Abdullahi taagan xilka madaxtinimada dawladda Puntland iyadoo goordowna la filayo inuu ku dhawaaqo xilkiisa musharaxnimada ee madaxweynaha dawladda Puntland ee 2019 Xuseen Madar TV-ga Somali News magaalada Boosaaso